waliga ma daawatay TV-ga amba filmaanta amba videoska dadka luqadda ku hadlaya Englishka laba qof oo luqadda ku dhashay marka qaarkood waa daawanaysa laga yaabo in aan fahmin ilaa subtitle-ka soo gelisid marka subtitle-ka soo gashid waxaan Allah sidaan fahmi waayay wax show iminkan fahmiya laakiin waxa muhiim ah in fahamtid adigoo subtitle-ka aanad akhrinba inaad caadi u fahmi kartid. Hello, assalamu alaikum and welcome to Iqra College. My name is Coach Ahmed Seattle and welcome to today's lesson. I'm excited for you. Inshallah, in this lesson, we're going to be learning about slang. The native American English speakers and native British speakers speak slang. In the world, 2022, people speak slang. If you don't understand slang, maybe you will not understand what people are saying when you communicate with them. So today, we're going to start Slang with Seattle. This is the first one, the first video. Kuso dhawaada dhammaan bartayaasha, ardayda, dhammaan dadka raba inay luqadda Englishka bartaan, Iqra College. Sidoo kale waxaan bixinaa intaan cashirkii galin waxaan bixinaa Carabiga, dadkii raba Carabiga inay bartaan iyo Soomaaliga, waa isqori kartiin. Sidoo kale iminka waxaa socda registrationka iyo isdiiwaangelinta haddaad doonaysid inaad baratid luqadda Englishka waan kaa caawin karnaa nambarada shaashada ku qoran nagala soo xiriir insha Allah. Iminka toos ma cashirka u bilaabana. Let's start our lesson. Waxaan baranaynaa slang. Slang waxa weeyaan waa iska afsuuqiga waa luqadda iminka la isticmaalo dadka badan isticmaalaan adduunka Englishka marka laga hadlayo. Sidoo kale waxaan eegaynaa kelmadahaas slangka kuwada waxa la yiraahdaa academic. Iyagoo slanga iyagoo academica labadaba waan eegaynaa. Academicna waxa weeyaan luqadda Englishka la isticmaalo xagga jaamacadda waxbarashada academic English baa la isticmaalaa. Labadaba waan eegi doonaa sidaad u fahantid insha Allah. Let's get started. So, the first word today, get it. Get it. waxa muhiim ah in book soo qaadatid oo ku qortid sida u xasuustid eriyadan way ka caawinaysaa insha Allah. iga daba isku day inay iga daba dhawaaqdin. Get it. Sida ugu dhawaaqayo ugu dhawaaq. Get it. Amba get it. Get it waxa laga wadaa ma fahamtay. May fahmaysaa. Do you understand what I'm saying? Do you understand the words coming out of my mouth? Do you understand it? Do you get it? Do you get it? Hadad fahamtay waxaan ha, yes, I get it. Ma'ala wallahi, I get it. Hadaan fahamtay waxaan I don't get it. Muxuu yiri? I don't get it. I don't get it. Marka badana tiida dib isku bedeshaa. Waliga ma daawatay TV-ga amba filmaanta amba videoska dadka luqadda ku hadlaya Englishka laba qof oo luqadda ku dhashay marka qaarkood waa daawanaysa laga yaabo in aan fahmin ilaa subtitle-ka soo gelisid marka subtitle-ka soo gashid waxaan Allah sidaan fahmi waayay wax show iminkan fahmiya laakiin waxa muhiim ah in fahamtid adigoo subtitle-ka aanad akhrinba inaad caadi u fahmi kartid. So, this one is get it. Do you get it? Today's lesson was a little difficult. Did you get it? Yes, I got it. I get it. I don't get it. I'm sorry. I don't get it. Ma fahmiyo. Amba I get it. Ma fahmiya. Xagga academic haddaan si gudubno waxaa jira kelmad la yiraahdo comprehend. Waxay ka timi comprehension. Comprehend. Comprehend. Iga dabaalo. Comprehend. Comprehend. Comprehend waxa weeyaan waan fahmiya. Okay? Do you comprehend? Ma fahmaysaa? Yes, I comprehend. No, I don't comprehend. I don't comprehend. Marka kaasi waa ka academica. Laakiin dadka inta badan isticmaalaan boqolkiiba inta badan waa get it. I get it. Okay? Marka isku day sentence xagga hoose ku soo qor xagga comments-ka istijaabi waxa tiraahdaa adigoo isticmaalaya kan amba kan adigoo sentence sameynaya. Okay? Sentence ina dhisi kartid waa muhiim kelmadda marka isticmaashid waxay ka xasuusinaysaa waxay ka caawinaysaa inaad xasuusatid eriyada waxay ka caawinaysaa inaad xasuusatid eriyada. Number 2, screw up. Screw up. Horta iga daba orada. Screw up. Xagaas waa ka baa lagu dhawaaqay. Screw up. Don't screw up. Oh, did you see Ahmed? He screwed up. Screw up waxa laga wadaa khalad marka gashid amba mistake ina wax khaldidood isku khaldidood xumaysidood wixii ba waa khiribtay. Tusaale presentation baa soo jeedinaysa ardayda dadkii dhamma doonaysa la hadashid and then wax khaldan baa ku hadlaysaaba waxba ilowday amba waxa oranaysa oh no I screwed up the presentation.
I don't like to screw up. I like to be organized and to be successful. But sometimes we screw up. We're human beings. We're humans. We make mistakes. So screw up. Screw up waxa weeye marka mistake amba ina wax khaldid. Haduu qofkaasi wax khaldo waxa ku oranaysa, hey, you screwed up. Past tense ba ka dhigaysa. Amba qof hadii doonto tiraadid maanta waa maalin muhiim ah. Wax muhiim ah sameynaysa ha khaldin, ha isku khaldin. Waxaana don't screw up. Don't screw up. Marka kalmada xagga academicna waxa la mid ah blunder. Blunder. Hey, today you have an exam in your English class. Don't blunder it. Ha kharibin, ha kudicin, ha humaynin. Si saxa u samee. Don't blunder it. It's not good to blunder it. Sometimes if you make a lot of practice, you will not blunder. You will not screw up. Okay, let's go to number 3. Number 3. You get about that. Couch potato. Couch potato. Amba xagga Ingiriiska, couch potato. He's a couch potato. But she's a couch potato. You get about that? Couch potato. Couch potato. Waqaf aajisa. Couch waa fadhiga, potato no waa baradaha. Waqaf iska fadhiya, cuniyo iska fadhiya, aajis, lazy. They don't do anything. They just sit home, they watch TV, and they go on the social media all day. Social media saas u daawanayaan. Couch potato. Ma shaqaystaan, wax ma qabtaan, wax ma bartaan. It's a couch potato. Do you know couch potato? There's a lot of people I know that are couch potatoes. So don't be a couch potato. Hanoqon qof aajis oo iska xaafada iska jooga oo waxba qaban. Wax qabo. Dhalinyaro tahay amba wali mustaqbal ba ka horeeya. Wax baro. English ko kala baran kartaa. Waa qori kartaa Eagle College. Online ba ku baro. Hadda ku guuleysan waydana isku day hadanoon. Ha isdiibin. Don't make a mistake. Try again. Couch potato waa qof aajisa. Isagoo academica waxa loo isticmaalaa indolent. That is an indolent man. Indolent waxa laga wadaa waa aajis. Waxa ma qabto. Waxa ma shaqaysani, waxa ma isku dayay nolosha waxa ka dhacay. He's indolent, but she's indolent. Okay? Kaas waa isticmaalka. Marka kuwan waxa rabaa sentence isku dayna soo qortid. Buugaagana ku qoro xagaas waa nagala socon kartaa cashirka. Also on the comment section waa nagala socon kartaa. The last one, chicken. Chicken. Bok, 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 bok. Chicken. Chicken. Haddaba chicken waa laga yaabaa inaad garanaysid maaha laakiin sida u garanaysid chicken waa digaaga cuntada la cuno. Like hadaa lagu yiraahdo, man, you're such a chicken. That person is a chicken. Chicken marka waxa weeyaan fully baa loo isticmaalaa qof fully ah. Okay? Tusaale qof baa ku oranaysa, go, isku day dabaasha, orod dabaalo. Wuxuu no, I'm scared. Waxaanaysa, don't be a chicken. He's a chicken. Waa fully. Waa qof baqanaya. So chicken waa qof aad cabsanaya, cabsi badan la garanaysa waxa. Isagoo academicna waxa loo isticmaalaa wimp. A wimpy person. A wimp. You have to be courageous. You have to be strong. You have to be bold. You have to be brave. Don't be a wimp. Be courageous. Don't be a chicken. Be a strong person. Okay, so waka cashirkii isku dayna soo qortiin waa slang was Seattle number 1 kuwa ku xigna daawo isku dayna inaad luqadii sidii qofkii dadkii meesha ku dhashay inaad ugu hadashid oo baratid. Waxaan bixinaa Carabiga, Iqra College wuxuu bixisaa Carabiga, Englishka, Soomaaliga, waa qori kartaa xagga diiwaangelinta dad baa ku diyaar inay ku fahansiyaan. Imakaas qori kartaa hadaad rabtay in waligaa luqadda Englishka bartay adigoo xaafadaad joogaan goobta shaqo isku day. Hadda mar isku daydina haddana isku day. Don't give up. Don't give up. Try your best. My name is Coach Seattle. See you next time.